ونحركيس يهي كبورين إن لو ديري قريدة كمين كوري مادان حيركا ينبت قليدة أمني جود كيس كاس أي حفيز كحيلالتو كوكيل كاينة قرن كاي كل شيء إنه بناه كاها وحكى قرن محكمة قبل كمرود الشيخ واحد هذا عقابته كرسوري كيس كاهي دوضها يجي شرعية دفاعية أنه كان هبلها لجو إيديني إن حدين على صوماليا بلسان إحنا على كيس صوماليا حدين دروع شيدا أو أي هفتكوا قاتين أو هبلا أدو دايرية إسلامركا محكمة واحد قيمة سي عديمية وحفيز كحيران تهر كاني يا عديمية قرنات الدفاع يا سنياش محكمة هر كانين محكمة واحد عدادي إلى ندم بدعين سنياش شنو أنا يهين كويدن بيجا قلي إسلامركا واحد محكمة قانصتي إني أعلى سحر ريدوده لما سنياشاس لما محكمة واحد كويدي عديميه كلن كاها موكلين تنقرين كواه aad ka daayar maxkamadda markay xoriyadoodu cali saxafiiska xeeraalintu waxay ka qaateen raxfaan ka qaateen xukunka ilaa maanta way xidhayeen dadkaas aan qareen ka wahay iyagoo haba yaraatay wax dambi ay maxkamadda ku weyday isla markaana maxkamadda go'aansatay in xoriyadooda loo celiyo waa hablo aad u daayar oo aan qaan gaar ahayn qaarkood maanta waxay ku dhaxanuunsanayaan saldhigyada ay qaar ku dhaxanuunsanayaan nasiib darro maxkamaddu waxay ka diiday maxkamadda raxfaanku in damaanad la siiyo ka diiday dhinaca kale qaar ka mid ah waalidiinta hablahan ayaa xukuumadda Soomaaliland ka codsaday in ay xoriyadooda u soo celiso isla markaana sheegay in carruurtoodu aanay siyaasad waxba ka aqoon balse ay dhar ahaan u iibsadeen marada lagu xidhay oo eeg calanka dalka Soomaaliya diric buluug ay xidhatay baa ay 3 bilood ku xidhanta saldhiga ugu jirta wax alla waxa dirica buluuga uu yahayna calankii Soomaaliya lagu tilmaamay waxa China soo sameeyay calan ma aha Soomaaliya inta soo sameysay Soomaaliya ay ku qoran tahay oo xidhatay kitaab baan ku marayaa inayna siyaasad ba shaqo ku lahayn oo diric ahaan u iibsatay hafta lagaga iibi marka madaxweynaha iyo dadka wax garadka iyo maxkamadda sare inta waxaan ku codsanayaa in xorriyadeeda lagu sii daayo aabadhi baan hay 3 bilood baan ka daba wareegay in si degdeg ah lagu sii daayo 4 hablood baa xiran 4 habloodna xaq darri ku xiran yihiin maxkamadda Hargeysa la geeyay garsoora la horgeeyay maxkamad baa la horgeeyay waxba waa lagu waayay markii lagu waayay hablihii raxfaan baa laga qaatay raxfaankii laga qaatayna maalinba maalinta ka dambeeyay bayna la sii riixaya marka dawladda sharafta la iyo calanka Soomaaliland iyo madaxweynaha iyo xaquuqiyiinka waxaan ku codsanaynaa hablaha in xorriyadoodii loo sii daayo Khalid Fodadi Saab TV Hargeysa